بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. درسيgan maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa sida loo basaaso website-yada. Marka aan leeyahay sida loo basaaso website-yada, waxaan u jeedaa sida aad u ogaan lahayd website-ka dhammaan information-ka ku saabsan website-kaas. Hadday noqoto page-ka maalin kasta la eego ee website-ka la eego iyo dadka visitors-ka soo booqda website-ka iyo website-ka qofka iska la xayeysiisyada lacagta uu ka faa'iido iyo website-ka qofka mulkiilaha ka ah lacagta uu shirkadaha uga xayeysiisyada uu shirkadaha u sameeyo lacagta uu ka faa'iido iyo qiimaha website-ka haddii la israa iibiya qiimaha uu ku kici lahaa inuu ku tijaabin doona laba website oo aad uga caan ah geyga Soomaalida oo ah website-ka somalijobs.com iyo website-ka kale sologroups.com la yiraahdo iyo sidoo kale aynu ku tijaabin doono website isaguna dunida oo dhan ka caan ah oo ah aljazeera.com. saddexda website idan waxaan bilaabi doonaa sharaxa. waxaan marka ugu horeysa tagaysaa website-kan la yiraahdo www.mastiat.com. website-kan oo rag developers ay sameeyeen bartan search box buu ku leeyahay. halkan waxaad ku qoraysaa website-ka aad doonayso. tusaale ahaan waxaan qoraynaa imika somalijobs.com ayaynu qoraynaa, kadibna search baad oranaysaa. waa iska sugaysaa inta kuu soo saarayo information-ka website-kan. waxa uu leeyahay somalijobs.com waxa uu helaa 48 visitors booqdayaal ah per day maalinkiis kasta. waxa booqday 48 qof baa booqda. haddii la israa website-kan iibiyo waxa uu ku kacayaa $12 ayuu ku kacayaa. SEO halkan waxa uu kugu sameynaya graph ayuu kugu sawiray waa kan. marka waa A halka akhtarkii waa A B C D E qiimeyn ayuu ku sameynaya. marka wuxuu ku leeyahay SEO performance-giisu waa D. SEO waxa weeyaan waa search energy optimizer. waa tamarta website-kan search-giisa tamartiisa ay marka la baarayo website-kan tamartiisu waa D. traffic-giisuna waxay ku xidhantahay markasta visitors-kaagu bataan. haddii visitors-kaagu ay bataan traffic-gaaguna wuxuu u dhawaanayaa A ayuu markasta u soo dhawaanayaa. ads review xayeysiiskiisuna waa E. haddaynu hoos usoo baxno website-kan basic information buu inaga siinaya. title-kiisu waa somalijobs. waxa uu leeyahay requirement advertising for employers haddii aan saxo dhawaaqa. halkan traffic-ga waxa uu leeyahay each day maalin kasta somalijobs waxa page views-kiisa waxa la daawadaa 240 page waxaana eega 48 visitors. dabcanna visitor-ka haddii aan anigu imika halkan galo oon ku qoro somalijobs.com haddii aan ku qoro somalijobs.com anigu waxaan ahay visitor ayaan ahay. haddaan bartaan ku qoro somalijobs.com anigoo keliya to visitor ana waxaan booqan karaa ugu yaraan 5 page baan booqan karaa. marka hal visitor waxa uu booqan karaa 10 page oo pages fara badan buu furi karaa. marka dabcan page views iyo visitors way isku xiran yihiin. halkan waxaan ina siinayaa sidoo kale website-kan earnings-kiisa. website-kan somalijobs waxa uu leeyahay waxa uu helaa macnaha faa'iidadiisa muxuu lacag faa'iida. somalijobs.com waxa uu helaa $0 buu ka helaa advertising-ka xayeysiisyada uu sameynayo $0 buu ka helaa. dakhliga ka soo gala banner ads waa xayeysiisyada shirkadaha uu xayeysiinayo waxa uu ka soo galaa waa $0 per year sanadkii $0 baa ka soo gala. marka qaabkaas ayuu inooga siiyay information-ka. halkanna waxa uu inaga siinayaa server information server-ka laga maamulo website-kan. marka wuxuu leeyahay amount of servers serverada laga maamulo tiradoodu waa hal server baa laga maamulaa. dabcan waxaynu ku tijaabin doonaa sidoo kale website labaad oo ka caanisna geyga Soomaalida oo la yiraahdo sologroups.com kadib search baan leenahay. sidoo kale website-kana waxa uu inaga siinaya information. waxa uu leeyahay sologroups.com waxa uu helaa 62 visitor per day waxa soo booqda 62 qof. haddii la israa iibiyo waxa uu ku kacayaa qiimo gaaraya $19. SEO search energy optimizer-kiisu waa D. kii hore la mid yahay traffic markasta oo visitors-kaagu bataan traffic-guna oo markasta u sii dhawaado ads-kiisa ama xayeysiisyadiisuna waa E low weeyaan. marka title-kiisa waxa uu leeyahay sologroups guriga barashada tiknoolajiyada sida bartay nooga muuqata. traffic-kiisa waxa uu leeyahay each day maalin kasta sologroups
waxa page viewskiisa pageka la daawado waa 310 page 62 visitor ayaana booqda. dabcan inaga soo tilmaamno markasta halkii visitor waxa uu booqan kara 10 page 10ka page kaliya baa booqan kara. marka waxa uu leeyahay halkan qiimo inagu siinaya waxa uu leeyahay average isku celceliska visitskiisu waa 1922 ayuuna leeyahay per month. sidoo kale pagkiisana isku celcelis waa 9610 per month bishii ayuuna leeyahay. halkan kale waxa uu inoo soo dhigayaa earningskiisa dakhliga kasoo gala sologroups.com waa halka xayisiinta advertising waa $0 banner adska kuwa shirkadana waa $0. sidoo kale halkanna waxa uu inagu siinayaa server information amount of serverska laga maamulo Solo Group waa 1 server, hal server baa laga maamulaa ayuuna leeyahay. dabcan sida waxa inoo haray ugu dambeyn website-ka isaguna dunida dhan ka caanka ee aljazeera.com baa isaguna inoo haray search bayn leenahay. waxa uu inoo soo dhigay aljazeera.com waxa 329,945 visitor oo booqda ayaa soo booqda per day maalinkii. haddii la israa website-kan EB waxa ku kacaya $12,908,249 ay ku kacayaan. dabcan waa lacag aad u fara badan oo qaali ah. SEO ama search energy optimizerkiisu waa B waynaga markastuu AUC dhawaado markastuu website-kaasi website fudud sida uu u baaraya uu yahay. macnaha markaad website-ka qorto tusaale ahaan aljazeera.com qaabkeedu kugu soo dhigay mise degdega mise sida caadiga trafficuna waxay ku xidhantahay markastoo visitorska ay bataan oo markastoo AUC dhawaato. ads revenue waa xayisiisyadiisuna waa B markaad website-kan levelkiisa uu ka fiican yahay website-dadii hore. title-kiisa waa Aljazeera English Live as Europe Middle East Asia qaabkaas ayuu yaalaa waad garanaysaa. traffickiisa hadaynu nimaadno each day maalin kasta Aljazeera waxaa laga booqdaa 1,964,725 page waxaana booqda 392,945 visitor. halkii visitorna dabcan wuxuu booqan karaa 2 page iyo 10 page iyo intii uu doono. earningskiisa dakhliga website-kan Aljazeera kasoo gala aljazeera.com waxaa soo gala dakhli $1,179 maalinkii ayaa xayisiisyada kasoo gala. xayisiisyadana waa xayisiisyada wadamada uu sameynayo balse xayisiisyada banner adska xayisiisyada shirkadaha waxaa loo sameeyo waxaa kasoo gala $430,335 per year sanadkii. haddii halkan waxa inoo soo dhigay waa qiimihii hore dabcan nagu soo celinaya. haddii la israa website-ka iibiyo $12,908,000 uu ku kacay. amount of serverska laga maamulo Aljazeera waa 6 server baa laga maamulaa. dabcan waa website weyn marka waa hal server kuma filnaanayo 6 server baa laga maamulaa. halkan waxa inoogu soo dhigayaa server location serverku halka uu yaala waa London ayuu noo soo dhigaya. dabcan adiga ku baari doona website fara badan si aad uga hesho informationka. darsigeeni waxa filaya barta inuu ku dhamaaday maanta. tan iyo darsi dambe ku kulmayna. salaam. haylaawin inaad ka qayb qaadato kanaalkeena si aad u hesho waxa cusub. sidoo kale inaad akhrisato boostooyinka cusub adoo ku biiraya bloggeena muxtarif iyo inaad Facebook page-keena kusoo biirto.